waxaa habeennimadii xalay saacadu markay ahayd kowda habeennimo dab xoog la qabsaday suuqa weyn ee ku yaala bartamaha magaalada Gaarisa ee lagu magacaabo suuq mugdi, kaas oo ay ku shufbeeleen inta badan meheradihii ganacsi ee suuqaasi ku yaalay. Dabka ka kacay suuqaasi ayaa ahaa mid xoogan, waxaana la arkayay ilaa subaxii xarumo ganacsi oo weli gubanaya, kuwa oo ka mid ahaa goobihii uu dabku waxyeelada u geystay. Suuqan oo ah kan ugu weyn magaalada Gaarisa ayaa lagu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan, qudaarta iyo agabyo kale oo muhiim ah. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa ee dabka khasaarahu ka soo gaaray iyo bulshada magaalada oo wax laga weydiiyay sida uu ku kacay dabka ayaa sheegay inaysan garanayn sababta dhalisay. Xilliga uu dabku kacay ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen oo kaliya ilaalada suuqa ee habeenkii. Mid ka mid ah ganacsatada suuqa oo la hadashay warbaahinta gobolka ayaa sheegtay in khasaare baaxad leh uu soo gaaray, isla markaana dhammaan hantideedii ay ku weyday dabkaasi. Suuqan ayaa dhowr goor hore sidan oo kale dab uga kacay sanadihii la soo dhaafay, iyada oo mar waliba cilada jirta ay tahay inaanan jawaab loo helin sababta dhalisay dabkaasi. Cabdulaahi Jaamac, MMTV, Nairobi.